weli ma isku aragtay dhacdadan oo kale oo ma u malaysay inaad sii dhimanaysid adigoo hurdana culays xoog badan inta feedhaha lagaa saaray aanad iska kicin karayn intuu naqaskuna kugu dhegay oo istiri qayli si lagu caawiyo ma awoodi weyday inaad hadasho waxaanad moodaysaa inaad sii dhimanayso naftana lagaa sii qaadayo argagax iyo cabsi badan ayaa dareemaysaa daqiiqadaha aad xaalada ku sugan tahay adigoo maqlaya waxa hareerahaaga ka dhacaya haddana isma dhaqaajin kartid xitaa ma kici kartid daqiiqadaha ay waxaasi ku haystaan waxaana lagu diidaya inaad kacdood cararto waxaad arkaysaa waxyaabo cabsi ah ood maqlaysaa welibana adigoo u malaynaya inuu shaydaan kula joogo dadka guriga kula jooga hadalkooda waad maqlaysaa iyo wax kastoo hareerahaaga ka dhacaya mar kastood istidhaado qayli si dadku kuu caawiyaan waa lagu diidayaa inaad hadasho haddaad istidhaado shaydaanka iska naar amba ashahaado sidoo kalena waa lagu diidayaa oo ma hadli kartid waxaadna moodaysaa inaad sii dhimanaysid oo nafta lagaa sii qaadayo argagax iyo cabsi badan ayaa kugu dhacaya cid ku caawinaysaana ma jirto argagaxa iyo cabsida aad la kulmaysid marxalada markaad ku jirtid waxay kugu sababaysaa inaanad dib u seexan oo hurdadaba ka cabsatid sidoo kale dhibaatadaasi waxay kugu kalifaysaa inaanad keligaa meel cidlo ah seexan daba arrinkan waxaa lagu sheegaa inuu yahay sleep paralysis curyaamida hurdada weligaa ma la kulantay oo sidani ma kugu dhacday ciladan hadda ka hor ma ku qabsatay dadka la kulma marxaladan amba dhibaatadan waxay qaadaan aanfariir iyo cabsi badan heer xitaa hurdadaba ay ka baqaan inay seexdaan naxdin iyo warwaray ku reebtay awgeed haddaba maxaa keena oo sababa shaydaan miyaa ka dambeeya waa maxay waxyaabaha ugu cabsida badan uu la kulmayo qofku markuu xaaladan ku jiro sidee lagu xallin karaa amba lagu joojin karaa sleep paralysis imise nooc ayaa loo kala saaraa amba uu u kala baxaa soo dhow mar kale daawade waanigoo ah Nadra Saciid laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba isoo falogare imanka iguma khasaari doontide haddii aad hore noola joogtayna sharaf ayaad leedahay ha ilaawin inaad like saarto video oo xaqiisa si ay anigana dhiirigelin igu noqoto mahadsanid weli ma la kulantay sleep paralysis curyaamida hurdada dadka ugu badan ee sidani ay ku dhacdaa waa dhalinyarada iyo caruurta yaryar waa cillad bulshada lagu arko balse dad badan ayna aqoon u lahayn laba sababood awgeed tan koowaad waa iyadoo loo maleeyo badanaa inay tahay sixir iyo jin amba cudur dhimarka ah tan labaad ayaa ah iyadoo dadka badankooda cilladan isku arka ayna dadka la wadaagin amba ayna u sheegin waxay aaminsan yihiin inay gaar u tahay haddii ay sheegaana inaan la fahmi doonin waxaana ka dhaadhacsan hadday sheegaan in la moodi doono inuu yahay qof waalan daawade adiguse umaad malayn jirin dhibaatadani inay keligaa ku haysato haddaba waxaa jira dad badan oo kaala siman 70% dadka badankooda way la kulmaan curyaamida hurdada amba waxa loo yaqaano sleep paralysis waa maxay waxyaabaha ugu cabsida badan uu la kulmayo qofku markuu xaaladan ku jiro awood uma yeelanaysid inaad jirkaaga dhaqaajisid waxaadna noqonaysaa paralysis feedhaha ayaa lagaa saarayaa wax culus oo xoog badan mana awoodaysid inaad kacdo amba aad far dhaqaajiso waxaana lagu diidaya inaad kacdood cararto waxaad arkaysaa waxyaabo cabsi ah ood maqlaysaa welibana adigoo u malaynaya inuu shaydaan kula joogo dadka guriga kula jooga hadalkooda waad maqlaysaa iyo wax kastoo hareerahaaga ka dhacaya mar kastood istidhaado qayli si dadku kuu caawiyaan waa lagu diidayaa inaad hadasho haddaad istidhaado shaydaanka iska naar amba ashahaado sidoo kalena waa lagu diidayaa oo ma hadli kartid waxaadna moodaysaa inaad sii dhimanaysid oo nafta lagaa sii qaadayo argagax iyo cabsi badan ayaa kugu dhacaya cid ku caawinaysaana ma jirto xaaladan waxaad ku jiraysaa dhowr daqiiqo marka uu waxaasi kaa tago intaad soo boodo ayaad xoog u qaylinaysaa hadhow dadkii kaa agdhowaa dhammaan waxay ku odhanayaan maxaa kugu dhacay ood la qaylisay markaad istiraahdid u sheegnaa maba garanaysid qaabaad u fahansiisid amba ugu sharaxdid waayo kuma fahmi doonaan dadka badankoodu waa sababta ku kaliftay inay iska aamusaan oo cidna ayna u sheegin haddaba shaydaan miyaa ka dambeeya curyaamida hurdada ummadihii hore weligoodba waxay aaminsanaayeen inay ciladani tahay weerar shaydaan amba sixir sheekh ayaa la weydiiyey su'aal wuxuuna ku jawaabay sidan When you go to sleep, some people they have this thing called a sleep paralysis. Have you ever had that before? You feel like something's come and a weight is on you and you can't move and you can't talk. So
you feel these things, and sometimes you see nightmares and you feel like it's real, and there's creatures and things like that. So these are actually the shaitan, the jinns. Do they harm you? No. Don't worry about it. It does not harm you. They just like to scare you. And the shaitan always likes to put fear, because with fear, there is vulnerability. So don't be afraid. wuxuu yidhi sheekhani sleep paralyze waa arrin uu shaydaanku ka dambeeyo keliyana waxay jecel yihiin inay ku cabsi geliyaan oo awoodna u sheegtaan dadka dhinac kalena haddaynu ka istaagno khubarada caafimaadka ku takhasustay iyaguna ciladan waxay ku sheegaan inay timaado marka maskaxda iyo jirku ay soo kala hortoosaan qofka maskaxdiisa indhihiisa iyo maqalkiisuba way soo jeedaan balse jirkii ayaa hurdo ku jira oo qofku wax dhaqdhaqaaq ah amba codama ma samayn karo maxaa keenay sleep paralyze qofku markuu hurdada bilaabayo ilaa iyo markuu ka soo kacayo wuxuu maraa marxalado iyo heerar kala duwan mid walbana way ka duwan tahay tan kale jirkaagana qayb ayuu alle u seexiyaa oo hal mar ma wada seexdo sidoo kale kicitaankaagu waa la mid balse heerarkaas amba marxaladahaas waxa u dhaxeeya ilbiriqsiyo aan la dareemin waxyaabaha keenay sleep paralyze waxa kamid ah hurdo la'aan hurdadaada oon waqti cayiman lahayn warwar iyo diiqad inuu qofku dareemo dhabarka oo loo jiifsado hurdada maalintii dadka isticmaala daroogooyinka amba maandooriyaha nooc kastuu yahay imise nooc ayuu u kala baxaa amba loo kala qaybiyaa sleep paralyze haddii aad isku aragtid ciladan hurdadaadu markay bilowga tahay waxaa loo yaqaanaa hypnagogic sleep paralyze haddii aad isku aragtid ciladan hurdada markaad kasoo kacaysidna waxaa loo yaqaanaa hypnopomic sleep paralyze sidee loo daweeyaa amba lagu joojin karaa laguna xalin karaa curyaamida hurdada badanaa ciladan uma baahna in loo qaato wax dawo ah waxaa muhiima in laga hortago waxyaabaha sababta u ah iyo adigoo ku dadaala waxyaabaha kugu caawin kara hurdada caafimaadka leh rasuulkeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ina baray ducooyin intaynaan jiibsan la akhristo aayado iyo welibana adkaar waxa kaluuna baray inaynu dhinaceena midig u seexano intaasiba waxay ka hortagaan cilado badan oo lagu arko hurdada waxa kaloo muhiima inaynu ka fogaano waxyaabaha doorin kara maankeena sida daroogada noocyadeeda kala duwan sidoo kale rasuulkeenu wuxuu noo sheegay inaynaan seexan waqtiyada qaar sida subaxdii iyo salaada casar kadib welibana xiliyadani waa waqtiyada ugu badan ee qofka uu la kulmo curyaamida hurdada waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan like saar oo u sheer garee asxaabtaada iyo faamiligaagaba waa anigoo ah Nadira Saciid waynooyo mar kale iyo muuqaalka kan ku xiga